ولا ليالو دلك دلكنا سنة ديساي أقول ديساي أول ديساي ديسا كلك ديسا والله قد شو والله دنتو ما قد هوا والله قد شو والله دنتو ما قد هوا ولا ليالو دلك دلكنا أنا سنة ديساي أقول ديساي أول ديساي بسم الله الرحمن الرحيم khudbadii ugu dambeysay looda gol u jeediyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa ku jirtay aynu isku dayno inaynu isku tiirsanaano marka hadda isku tiirsanaantii bay ka mid tahay koobiisada ka dhismay ee wasaaraddu miisaaniyadeeda ka dhistay horta mahadnaqa koowaad ilaahay baa leh alxamdulillaah rabbil caalamiin mahadnaqa labaad waxa leh cashuur bixiyaashii bixiyay lacagtaasi cashuurta laga qaaday madaxweynaha Soomaaliland oo nala ogolaaday iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo wasiirka xigeenka maaliyadda iyo agaasimaha guud oo ogolaanshihii in aanu line items miisaaniyada oo wax loogu tala galay hawlo kale aanu dhaahno hawlaha kale wax ka muhiimsan meelaha aan iskuulka lahayn nala ogolaaday waa miisaaniyadu waa sharcigaana waa inay processkii marto hadii la doonayo in meel tusaalahaan dayactir ahayd in loo bedelo dhisme 700 baa sanadkii hore oo degsiimo degan yahay ba iskuul lahayn imika laakiin 600 bay noqotay 100 waynaga sanadkan ka shaqeynay sanadkan waxaan isku dayeynaa in 200 inaanu gaarsiino hadana inaanu ka dhisno 143 meelood oo dugsi hoose dhexe leh oo bilaa sekondariya jiray kuwaana waxaan maanta laga bilaabo waxa la yiraahdaa dugsiga hoose dhexe sare ilaa la diiday baa dhismo dugsiga ku dhigan karnaa marka dambana jaamacadaynu ku dhigan karnaa marka waxbarashada inagoo tiradeedii saa kor u wada baynu tayadeedana aynu xoojinaa muwaadiniinta reer Soomaaliland lacagtii cashuurtii bixiyeen in inta soo dugsi oo gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland kamid laga dhisayo oo haddana halka ka soo bilowno liisku runtii aad buu dheer yahay dugsiga Duruqsi oo la dhisayo dhowr fasal laga dhisayo dugsiga Garadag dugsiga Xargaga dugsiga Bixin Dalax dugsiga Mandheera oo isna fasal lagu darayo dugsiga Bale Cabane dugsiga Ceelcaanood oo isagu cusub dugsiga Ismaaciil Yunis dugsiga Aadan Abakar iyo dugsiga tuulada Shulke dugsiga Biyashiinaha isna lagu darayo fasalo dugsiga Baliga Cas dugsiga Sayla Bari dugsiga Higlaale Weeraarta ina Cunaaye Darbi Dawan oo isna sanaag ku yaala dugsiga Shumux Laflamood Hunduli oo Hargeysa dugsiga Gorayacad dugsiga Qarmaji Salaxley degmada Salaxley iyo degmada Bilgoodleyna library laga dhisay ardayda wax ku akhrisato iyo dugsiga Sarmaanyo oo dugsi sare cusub laga dhisayo dugsiga Masalaha Gorod oo isna dugsi cusub laga dhisayo oo gobolka Togdheera waxa inta dheer marka madaxafkii Berbera iyo dugsiga farsamada gacanta ee magaranaysaa ari cadeeye waxaasna waxa laga maalgeliyay cashuurta qaranka haddaynu cashuur badan bixino waxaynu kordhi doonaa in adeegyo fara badan xukuumadda noo dhisto marka fariinta ugu weyn muwaadiniinta halka ugu dirayna waxa weeyaan xukuumadda hogaamiye mudane Muuse Biixi Cabdi cashuurtiinii iyo qarankii lacagta ku bixiseen baa kaydisay kadibna waxa lagu bixiyay marka adeegii waa lagu bixinaya dugsiga hablaha ee Boorame oo la balaariyay dalay quruxsan dugsiga leedahay sina magaalada ku yaala Daracase hulka magaalada leedahay sina iskuul laga dhisay sidoo kale bulshada gobolka Salal oo iyaguna iskuul magaalada gobolka Awdal guuleed wanow mid iskuul dad ku dhisteen ayasna iskuulada kamid ah tan iyo intii aynu dawladnimada casriga ah iyo gobonnimadaba helay iyo waqtiyadii ka dambeysay iyo intii Soomaaliland aynu la soo noqonnay madax banaanideena 1990kii ma ay jirin inta la og yahay dugsi laga dhisay miisaaniyad dawladeed inta badan waxa iskuulada laga bixin jiray dayactirka
iyo jiingadda haddii ay ka tagto oo kale ama dabayle ka qaadaan miisaanta kuraasida farniijarka waxyaabahaas miisaaniyadda dawladda laga bixin jiray laakiin dugsiyada waxay noo dhisi jiray inta badan sida qaalibka ah hay-adaha marka maanta waxaa ilaahay mahadiya in markii ugu horreysay cashuurtii muwaadiniinteenna jamhuuriyadda somalilan 31 dhisme oo waxbarasho oo u badan dugsiyo iyo laybareeriyo laga dhisayo miisaaniyaddii dawladda waxay muujinaysaa sida aynu ummad ahaan wax u qabsan karno waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo ay isagana ka go'an tahay inuu waxbarashada gacan siiyo oo waddankuna uu horumar ka gaadho 31 dugsi loo dhisay inay dugsigii marka la dhiso laga faa'iideystaan la doonayaa in ubadkii la keeno baa la doonayaa in baahidii dugsiga aynu dhisnay nagaga hadho ayaynu u baahannahay dugsiguna marka la dhiso in wasaaradda waxbarashada oo qura lagu haleeyo la yiraahdo wasaaradda waxbarashada dhistay oo waa ka maaha iskuulada waxbarashada lagu rabo adduunka kayartuna awooday dawladayda ogow dawladayda mudane agaasimo guud halkan waxa weeyaan halkii aan ugu talagalnay dugsiga sare ee beeye khadar ama beeye sheenaha waa halkan waa dhul ballaaran dawladda ayaa iskale dhulkan oo dhan dadka deganina waxa weeye ku meel gaar ahaan bay u degan yihiin intii looga baahdaba mar walba waa dhul la helayo iskuulkii sare ayaynu dhagax dhigaynaa ayaa la jeexaya waaba tan hawshii socoto aad baanu u hambalyaynaynaa ee madaxweynaha maanta hogaaminaya wuu dadaalayaa baan filayaa laakiin dagaal iyo kolba rabshad baa ku furmaysay iyo itixaan iyo odayaal iyo dadkadeeda wax xagga horumarka loo jeesto marka hawshu si u socotay in in dhismihii iyo in shirkadii joogto ayaanu u soconay ujeedada labaad aan u soconay waxa ay inaanu bulshada deegaanka ku wacyigelino iskuulka wataas oo la dhisay oo dhismihiisu uu bilaabmay sanad insha Allah sanadka dambe waxba lagu dhiganayaa in bulshada deegaanku ay ilaaliyaan wixii ay taakuleynay dhismaha ka qaadanayaan ay ka qaataan waxaad yeeshay dhici jirtay ardaydu markii eedka ka baxdo tuulooyinkan oo kale sida beeshinoo kale inuu ardaygu waayaba meel secondary ka bilaabo oo markaa kii qaraabo kula hargeysana uu helo kii kana laga yaabo in daraba u toqdo waxa markaa aad wasaaradda waxbarashada ugu hambalyeynaya warwarka meel kasto dugsi dhaxa ka baxayoba in loo helo secondary daadaa yar ee markay la dhageysanaysa waa kuwii berita mustaqbalka madaxweynayaashii baa ku jira wasiiradii baa ku jira agaasimayaashii guud baa ku jira iyagana ilaahay waxaan u baryaynaa inuu cimriga u barakeeyo dhismahan maanta la bilaabayo dugsiga sare ee biyashiinaha ka mid ah wuxuu qayb ka yahay markaa 31 dhisme oo dugsiyo ah oo wasaaradda waxbarashadu ay ka maalgelisay miisaaniyaddeeda qaranka 2020 iyo 2021 oo waddanka oo dhan markaa maanta ka bilaabmaya si guudna markaa maanta loo daafuray halkan markaa anagu aanu ku nimi maanta kormeerka bilaabadu ka socotay biyashiino waxay markhaati ka tahay markaa in xukuumadda hogaamiye mudane Muuse Biixi Cabdi wax qabadkeedana propaganda hadal hayn marka wax lagu dhawaaqay isla markii waa la bilaabaa waxyaalaha xukuumadda markaa ay ku caanka ku tahay maali dhawneedo dhameystiranto ardaydu wax ku baranayso ayaan arki doonaa insha Allah ilaahay nagu simo waxaan markaa dardaaranka deegaanka dadka deegaanka siinay wax weeyaan in dhismo la helo runtii ma adko xukuumaddiina ay idin joogta laakiin waxyaalaha ugu badan anaga xukuumad ahaan challenge-ka noo yimaada wax weeyaan muranka dhulka ugu badan iminka iskuulada inta dambe dhulka maanta banaan ee la wada arkayo ayma marka la dhiso loo dhigay halkan aniga deganaan jiray halkan waan ku soo yar durka halkan meherad baan ka sameysanayaa waxa soo mushkilad waxbarashada runtii dhibaato ku ah iminka aan ugu celeena danta guud shakhsi ma yeesho macallin noqo ama agaasimo noqo maca gudoomiyaha taxanaadka hadda noqoto kuma saamaxaysana hantida qaranka yeelata ma noqonayso marka dhulkan dadkaas kala carruurta mustaqbalka dhalan doonta iyo kuwa yareey noo jooga lagu talagalay imika wax qabadkan maanta inoo suurta galay ee waddanka oo dhan maanta ka wada bilaabmaya wuxuu ku yimid markaa canshuurta la bixinayo intii la dhaqdaa dawladda riyaa waxa dhaxasha waxa didido nin diran ligta u soo dhaqsatay ninkii isdhigta dhashiisu qadaa ninkii isdhigta dhashiisu qadaa
wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Sool ayaa gaadhay deegaanka Sarmaanyo ee gobolka Sool waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay waxgaradka iyo odayaasha deegaankaasi isagoona gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Sool Daahir Maxamed Axmed uu si rasmi ah uga dhagax dhigay deegaanka Sarmaanyo dugsi sare oo yeelan doonto deegaankaasi iyadoo madashii lagu dhagax dhigayay dugsigaasina ay goobjoog ahaayeen waxgaradka iyo odayaasha deegaanka Sarmaanyo intiina waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Sool Daahir Maxamed Axmed isagoona ku dheeraaday ahmiyadda dugsigani uguna baaqay dadka deegaanka Sarmaanyo inay ilaashadaan kana faa'iideystaan dalka oo dhan waxaa ka bilaabanaya dhagax dhigii waxaan u mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada oo juhdi iyo dadaal badan ku bixiyay in halkan maanta laga dhagax dhigo dugsi secondary oo ay leeyihiin ubadka reer Sarmaanyo dugsigan hoose dhexe ee degmada Sarmaanyo muddo badan ba waxa ka soo baxaysay ardaydaasi runtii waxay ahaayeen kuwa meel fog secondary u doonta maadaama ubadkoodii magaalooyinka waaweynaan ay ka fog yihiin in uu secondary halkooda ugu dhiso waa qorshaha wasaaradda waxbarashada runtii waan uga mahadcelinayaa wasiirka iyo agaasimaha guud iyo dhammaan bahda waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska dhammaan reer Sarmaanyo waxaan ka rajaynaynaa iskuulka inay ilaashadaan cidda loo dhisayo waa ubadka reer Sarmaanyo injineer ka socday wasaaradda hawlaha guud ee gobolka Sool iyo mas'uul ku hadlayay afka shirkadda dhisaysa dhismahaasi ee Kadar ayaa dhankooda halkaasi ka hadlay secretary loogu talagalay inay degmadu ay ka faa'iideysato Sarmaanyo waxa weeye 4 galaas iyo hadii ay badankeeda leeyahay office-kii oo dhameystiran wasaaradda hawlaha guud waxay xaq ku leedahay shirkadda dhisaysa inay la daba gasho mashruucii inuu fulay bilowgana waanu nimaadnaa intuu mashruucu socdaan waanu ku soo noqnoqnaa waxaan matalayaa haddii halkan u joogaa shirkadda Kadar Construction waxaanu ballan qaadnay inaanu dhisno iskuulka secondary-ga waa xil culus weeye waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa inuu noo fududeeyo odayaashii waxgaradka deegaanka ayaa dhankooda soo dhaweeyay dugsiga sare ee xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda waxbarashada ay ka hirgelinayso deegaankooda waxaanu marka koowaad aad iyo aad uga mahadnaqaynaa waxqabadka iskuulka dugsiga sare ee naloo keenay aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa iskuulka sare iyo dadka wada waa soo dhaweynaynaa annaguna raggaa sida wasaaradda gudoomiyaha iyo kulli waxaan u mahadcelinaynaa dadka hawl wadeenka ee meesha yimi ibaan qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland deegaanka Sarmaanyo ee gobolka Sool gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool Salebaan Diiriye Cabdi iyo gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada ee gobolka Sool Axmed Maxamed Yuusuf ayaa maanta si rasmi ah uga dhagax dhigay deegaanka Xargaga ee gobolka Sool dhismo lagu kordhin doono dugsiga hoose dhexe ee deegaankaasi waxaana dhismahan uu ka mid noqonayaa 25 dugsi oo wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland ka hirgelinayso deegaanada dalka iyadoona ay goobjoog ahaayeen munaasabadii lagu dhagax dhigayay odayaashii waxgaradka deegaanka Xargaga iyo mas'uuliyiinta shirkadda dhisaysa dhismahaasi ugu horeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool Salebaan Diiriye Cabdi iyo gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada ee gobolka Axmed Maxamed Yuusuf iyagoona ku dheeraaday ahmiyadda uu dhismahan u leeyahay dugsiga hoose dhexe ee deegaanka Xargaga iskooladan idinka qayb dhistay marka la arkay inaad iskool idinku aad wax bilowdeen yaa wax la idinku daraya dhisaya waxa hadii idinku aad la timaad dambar bilow maanta waxaanu halkan u nimi inaanu idin dhagax dhigno dhisme fidina oo aanu ku kordhinano lagu kordhinayo dugsiga hoose dhexe ee Xargaga waxaa maanta la inoogu kordhinayaa 2 fasal iyo suuligii iyo xafiiskii oo si casri ah loo dhisayo oo shirkad wanaagsan oo dhismayaal qurux badan hore dalka uga soo dhistay ay dhisaso baynu maanta ayaynu dhagax dhiganaa oo budgetkii wasaaradda waxbarashada ayaa laga dhisayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo madaxda sarena waa u mahadnaqanaa dugsigan baahi weyn buu dhismahan u qabay 200 oo arday oo meel kala fadhiista la'ayd ayaa ka faa'iideysan doonta odayaashii waxgaradka deegaanka Xargaga ayaa dhankooda uga mahad celiyay wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland dhismahan ay ugu kordhisay dugsiga hoose dhexe ee deegaanka Xargaga maanta farxad waxay noo tahay magaalada Xargaga oo lagu soo kordhiyay 2 fasal oo waaweyn iyo xafiis iyo suuli kadib markii keentay arintaasi baahi loo qabay qolada dhismaha wada
ama kambaniga ku guulaystay waxaan ku codsanaynaa inuu ahaado wax uu dhisay wax tayo leh taas waa mid deegaankan waxaan leeyahay meel kasta aad joogtaan si hore loo sheegay baa ninkii waxayse wax loogu daraa ku fara adayga waxaan ugu mahadnaqaynaa jamhuuriyadda somalilan oo noo dhisaysa 2 qol oo waxbarasho iyo xafiiskoodii iyo suuligoodii aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqaynaa dowladda somalilan iyo wasaaradda waxbarashada oo garatay 3 iskool ee u soo baxay deegaanka gobolka Sool inaynu mid ka mid ah ay noqoto deegaankani taa waa soo dhaweynaa mar labaadna waa u mahadnaqaynaa waxaan kaloo halkan uga faa'iideysanayaa dadka deegaanka dadaalkii hore aad hayseen ee ahaa inaad idinku iskiin wax u qabsateen inaad halkii ka sii wadaan waxaa kabariga ku guulaystay ee fulinaya waxa weeye waxa la yiraahdaa waa udub insha Allah waxaan u maleynayaa kulli kabin ahaan hawsha aan ballan qaadnay waa dhamaystireena liibaan qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland intii la dhaqdaa dawla daryaa waxaa dhaxasha waxaa didido nin dhiira ligta u soo dhaqsatee ninkii isdhigta dhashiisu qadaa ninkii isdhigta dhashiisu qadaa wafdi hogaaminayo wasiirka diinta iyo awqaafta Sheekh Xaliil Cabdilaahi Axmed iyo xubno wasiira weelinaya ayaa soo gaaray xarunta gobolka Hawd ee magaalada Balligubad iyadoo wasaaradda horumarinta waxbarashada iyo sayniska xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ay dhismayaal cusub ay ka hirgelisay dhammaan xarunta gobolka Hawd tuulooyinkooda iyo degmooyinka ku xeeran gobolkaasi ugu horeyn goobtaasi waxaa ka hadlay agaasimo waaxeedo oo uu ka mid ahaa agaasimaha waaxda xog ururinta Maxamed Cabdi محمد شينه iyo agaasimaal kale waxa ay dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ku guuleysatay in khasnadii dawladda laga dhiso 26 dhisme oo hadda bilaabmaya oo 24 kamid ay yihiin dugsiyo waxbarasho labana ay yihiin librariyo taasoo laga dhisayo khasnada dawladda siyaasadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi oo ahaa maxaan ku dhahdayay horumarkii iyo ballanqaadkii kulmiye uu ballan qaaday inuu maxaan ku dhahday waxbarashada kor u qaadayo waxa weeyaan dawladdii way noo soo jeedsatay iskuuladii baa la kordhinayaa haddii aydan ka qayb qaadanin waxa la samaynayo oo aydan maxaan ku dhahday dawladda iyo shicibka iyo ganacsatada iyo hay'adaha oo isku duuban baa la doonayaa inay kordhiyaan wax oo marka wax la isu geeyaa wax la tari karaa waxbarashada oo si fiican runtii aad iyo aad oo wax qabada noogu sameeyay degmada Sayla waa iskuulkii labaad imika kani oo imika la dhagax dhigayo la dhisayo halkan waxaan kaloo uga mahadnaqaynaa wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Mr. Axmed oo noo ballan qaaday oo na dhagax dhigay inuu dugsiga Balle Cabane noo dhameystiro maantana fulintii iyo dhameystirkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo waxyaabihii uu ballan qaaday xagga waxbarashada amba nooc kale ahaatee uu fuliyay hay'adda waxbarashada iyo tacliinta sare wasiirka xanaanada xoolaha iyo agaasimayaal guud dhammaan baa halkaasi mas'uuliyiinta ayaa waxay ka hadlay hadaladoodii kamid ahaa meeshan dhagax dhigeeda iyo dhismaheedu waa wada socdaan oo ay shirkadii mid walba waxa garab socota shirkadii qandaraaska qaadatay waxaan aad iyo aad doonayay inaan ugu mahadceliyo Ilaahay baa mahadlay horta waa xukuumadda aanu ka tirsanay ee Muuse Biixi Cabdi uu gadwadaanka ka yahay wax qabadkeedii weeyaan la dhisayo magaalada kordhinayo horta waxa laga kordhinayaa budgetkii dawladda hay'adna ma bixin ficilna ma bixin wakiil dawladda waa shurtii la idinka qaaday junubaad ku soo noqotay dugsiyada la dhiso dugsiyo sare iyo kuwa hoose ayaa maanta dhismahooda la bilaabaya waxna wax cashuuraha muwaadiniintu ay bixiyeen laga maalgeliyay gabagabadii halkaasi waxaa soo afmeeray barsaabka gobolka Hawd iyo wasiirka diinta iyo awqaafta oo dhammaan kuwan iyo kuna wacyigeliyay dadweynuhu inay ilaashadaan dhismayaasha xukuumaddu dhistay keenana ardayda wax ka baranaysa goobaha loo dhisay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo runtii sida horeba loo sheegay isagu xukuumaddan uu garwadeenka ka yahay hadday tahay waxbarashada iyo hadday kaan adeegyada kale ee bulshada ay tahay siyaasadda uu ummadda ku hagayo madaxweynaha qaranku waxaan u mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada
iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud dhismayaasha faraha badan leh 10 ku dhow ee maanta la bilaabayo ee Misayla ilaa iyo Balicase laga soo bilaabayo maantana waxa suurto gashay in joogno goobtii la bilaabayo oo dhagax yaalo shirkadii bilaabaysana ay joogto goobto tahay waxaan shirkadda ku boorinayaa sidii hore u shaqayn jireen ee horeba hawlo badan qaranka ugu soo qabteen iskuulka ay dhamaystiraan haddii la yiraahdo cilmiga isugu tagno aqoonta isugu tagno wasaaradda la isgarab taago sanduuqa horumarinta waxbarashada ay diyaar gareeyeen laga wada qayb qaato in ku boorinayna Ahmed Maxamed Cawaale warbaahinta qaranka Soomaaliland gobolka Hawd balik badle iskuulada waxbarashada lagu rabo adduunka kan yartuna awooday gudoomiyaha waxbarashada iyo sayniska gobolka Sanaag ayaa kormeer ku tagay iskuulka hoose dhexe ee laga dhisayo deegaanka Bixin Dhalaax ee galbeedka magaalada Ceerigaabo kaasoo ay xukuumadda Soomaaliland ka hirgelinayso deegaanka oo baahi weyn u qabay hooy ay ubadkoodu ka harsadaan iyo xilliyada roobku da'ayana ay ka galaan ugu horeyn waxaa gudoomiyaha waxbarashada gobolka Sanaag mudane Baandheeye uga warbixiyay dhismaha iskuulkan injineerka gacanta ku haya dhismahan Fahad Faysal Cismaan oo ka wakiila shirkadda iyadoo qandaraaskan ku guuleysatay anigoo ku hadlaya afka shirkadda dhisaysa ee ku soo guuleysatay marshuucan Soft Construction and Contracting Company waxaan iniga mahadcelinaynaa sidii ballaanayd ay noo soo dhaweyseen deegaan ahaan waxaan inii ballan qaadaynaa inaanu inii dhisi doono dhisme tayadiisu aad u wanaagsan tahay dhankooda waayeelka deegaanka Bixin Dhalaax ayaa wasaaradda iyo cid kastoo ka soo qayb qaadatay dhismaha iskuulkan uga mahadceliyay iyagoona sheegay inay baahi weyn u qabeen waxa maanta nagu soo booqday oo aanu aad uga mahadcelinaynaa gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ka deegaan ahaan markaan soo qaado baahida halka loo qabay waa arkayseen maanta iyo waqtiyo hore oo halkan aynu isugu nimiba ardayda ka soo baxday oo 7 fariisanaya ilaa lambar 7 fariisanaya lambar 4 fariisanaya baynu ku arkaynay ummadan oo dhan ka marxaatay wasaaradda halkan dhowr jeer noogu timo waa ka marxaatay gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada iyo sayniska gobolka Sanaag Axmed Shire Maxamed Baandheeye isagoo bulshada deegaankana ugu baaqay inay ilaashadaan badqabka iskuulkaasi isagoona wasaaradda waxbarashada heer qaran uga mahadceliyay hirgelinta iskuulkan iyo cid kasta oo ka soo qayb qaadatay oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa maanta ka qayba oo aynu joognaa halka kan waa Bixin Dhalaaxood weeyaan labada meelood waxa weeye shurka ayaa la yiraahdaa oo iyadana maanta sidan oo kale looga howlgalay meesha ku xigtaana waxa weeye shumux oo iyadana sida maanta sidan oo kale looga howlgalay waxaanu anagu maanta hadafkayaga iyo ujeedadayadu u yahay in aanu soo eegno shaqada maanta ka bilaabantay oo ahayd maanta inay bilaabanto ilaahay mahadiha ka gaadhee halkan shaqadu si fiican bay uga socotaa iskuuladan la dhagax dhigayo iyo iskuulo badan oo maanta laga hirgelinayo dhammaanba gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland wax weeye waxqabadka taamka ee tooska ee muuqda ee wasaaradda waxbarashadu dhinaca waxbarashada ka qabatay iyo siyaasadda uu u jeexay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi idinkuna nasiib baa u yeelateen wax weeye taana waxaan uga mahadcelinaynaa marka ugu horeysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan kaloo uga mahadcelinaynaa wasaaradda waxbarashada maamulkeeda sare iyo madaxdeeda sare waa Cabdirasaaq Xaaji Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Ceerigaabo isuduwa ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Sanaag Ibrahim Ducaale Xuseen ayaa kormeer ku tagay goobta laga dhisayo iskuulka Shumux ee waqooyiga magaalada Ceerigaabo isagoo ay socdaalkiisan ku weheliyaan shirkaddii dhisi lahayd iskuulka ee iyadoo qandaraaska dhismahan ku guuleysatay waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay mas'uul ku hadlayay afka shirkadda soo qaadatay dhismaha iskuulka Macruuf Construction Company sidii hore aan uga shaqayn jiray dhismayaasha in aanu dhismo qurux badan oo wanaagsan oo wixii lagu siday ku qoraayeen aanu fulino insha Allah aanu ka fulino goobtan shumux dhismahaas oo hore loo dhagax dhigay
maantana aanu bilownay. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay waayeelka deegaanka Shumux oo aad ugu mahad celiyay wasaaradda waxbarashada iyo cid kasta oo ka soo qayb qaadatay iskuulka laga dhisayo deegaankaasi oo ah deegaan buuraley oo aan goobo waxbarasho hore uga jirin. kii maalintii dhaweyd uu dhagax dhigay afayeenka madaxweynaha maxamuud warsame jaamac iyo wasaaradda oo la socota waxbarashada iskuulkii baa maanta shaqadiisii si aad iyo aad u qurux badan ayuu bilaabantay. waan uga mahad celinaynaa ciddii keentay iyo cidda ka soo shaqaysay iyo cidda ku soo dadaashay iyo cidda dib uga shaqayn doontaba. isuduwa ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Ibraahim Ducaale Xuseen Jabane ayaa bulshada deegaankaasi kula dardaarmay inay ilaashadaan iskuulka deegaankooda looga hirgeliyay. waxaanu joognaa goobta Shumux wasaarad ahaan waxaanu anagu u soconaa kormeer dardargelina bal sida ay wax u socdaan mar walbana saasaanu ugu raad joogi doonaa. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadka deegaanka oo uu kow ka yahay gudoomiyaha deegaanka. dhulkan waa dhul buura ah, tacab badan baa ku baxay. waydan aragtaan dhulka sida loo baneeyay, waxa rag baa baneeyay. iminkana inta ka dambaysa dhadhaabaha waaweyn iyo dhirtaas oo dhan waxa la doonayaa in la baneeyo. dhulka iskuulka ama bedka iskuulku ku fadhiisanaya inuu yahay 200 oo mitir oo iskuweer ah. alxamdulillah rabbil caalamiin. walaw ay buura tahay wada shaqayntu iminka inoo bilaabantay inooma aha gebagebe waa inoo bilow. waa Cabdirasaaq Xaaji Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Ceergaabo. gudoomiyaha kormeerka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Sanaag Axmed Ciise iyo mas'uuliyiin ka socotay shirkadda dhisaysa iskuulka Shurko ee bariga magaalada Ceergaabo ayaa si toos ah u bilaabay dhismaha iskuulkaasi oo hore deegaankaasi looga dhagax dhigay. waxaan u mahad celinaynaa dowladda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka waxbarashada iyo agaasimaha waxbarashada oo iskuulka suurta geliyay in looga dhiso halkan meesha la yaasho Shurko. waxaan kaloo ka codsanaynaa in waxa naga dhiman ee caafimaadka ka mid yahay in dowladdu iyadana wax noogu darto waxqabadkeeda noo kordhiso iyadoo wax badan oo hore ay noo qabatay. dowladda waa mahadinaynaa, waxqabadkeedana aad baan ugu mahadinaynaa. waa ku mahadsan yihiin dowladda Soomaaliland oo madaxweynaha ka yahay Muuse Biixi Cabdi. aad baan u mahadinaynaa dhismihii iyo dhagax dhigoo isxiga aad iyo aad baan u mahadinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad. xisbiga ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi waxqabadkiisa koobaad wuuna soo gaaray sidaana waan ugu mahadnaqaynaa. maalin dhaweyd afayeenka dhagax dhigay maantana gudoomiyihii kormeerka ayaa noo keenay. seeskii waa la jeexay, waanu gudoomanay, waanu ku sugaynaa dhismihii macallimiintii oo loo shaqo geliyo. waxqabad kale oo loo qabto meesha ma laha goob caafimaad. taasna waxaanu codsanaynaa insha allahu tacaala in naloo keeno oo wax naloo qabto anaan wax qabsano. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Cabdi Muuse Xirsi oo ku hadlayay afka shirkadda ku guuleysatay dhismaha qandaraaskan iskuulka Shurko. waxaan kormeerka hortiisa ka cadeynaya ama aanu ka ballan qaadayaa in aanu shaqada aanu maanta jeexnay in aanu siday tahay u qaban doono. ugu dambeyntii Axmed Ciise Cabdi oo ka socday wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Sanaag ayaa ku dheeraaday siday wasaaradda waxbarashada ee dalka uga go'an tahay in dalka oo dhan laga hirgeliyo goobo waxbarasho oo ah hogaaminta toosan ee madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu dalka ku hogaaminayo. haddii xukuumadda Soomaaliland ee Muuse Biixi hogaaminayo waxay gobolka Sanaag ka dhisaysaa 3 iskuul oo midkaan Shurko yahay, midna yahay bixin dhalaxood yahay, midna yahay Shumux yahay. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha iyagoo ku shaqaynaya tiirka ay dhisteen ama manhajka ay dhigteen iyagoo ku shaqaynaya. waxaa ka go'an in meel kastoo arday joogo in loo sameeyo dugsi loo sameeyo. intii la dhaqdaa dowladda
mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Togdheer oo uu heliyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer ayaa deegaanka Gaatame ee degmada Qoryaale ee gobolka Togdheer ka dhagax dhigay iskuul hoose dhexe oo yeelanayso deegaankaasi Gaatama waxaana dhagax dhigay iskuulkaasi ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha degmada Qoryaale Cabdiraxmaan Siciid Cawad waxaana uu mahadnaqay mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee dhagax dhigay iskuulkaasi halkan waa Gaatama waa meel qayb ka mid ah degmada Qoryaale waa meel aad iyo aad ugu baahnayd bahda waxbarashada aad u dhibanayd macaamad wax ka badan aan lahayn in badanna lagu jaamaayay mar loo dhagax dhigay iskuul in badanna loo ballan qaaday ballanqaadkii aad sugayseen reer Gaatamo aad inta badan naawilayseen waa ka maanta yimi aynu ilaashano waxaan aad u soo dhaweynaynaa anoo ku hadlaya magacii wasaaradda waxbarashada degmada gudoomiyaha cusub oo aad u nasiib baday sidoo maayirku sheegay maalintii koowaad ee uu cagaas soo geliyay degmada horena aanu arag dhagax dhig buu kala kulmay waa wax ilaahay loogu mahadnaqaa gudoomiye aad baan ku soo dhaweynaynaa waan ku mahadnaqaynaa wixii ay noo keeneen ee iskuulka maanta ay noogu ballan qaadeen waan ku mahadnaqaynaa Farxaan Maxamed Jaamac ayaa sheegay inay dhisi doonaan dhismo ay ka faa'iideystaan dadka ku dhaqan deegaankaasi oo tayo leh anagu waxaan nahay shirkadda Al Sharaf Construction Company waxaan ballan qaadaynaa inaan dhismo tayo leh gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Togdheer Ibrahim Digaale Maxamuud iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Ibrahim Nafaqo ayaa iyaguna dadka ku dhaqan deegaankaasi kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan isla markaana ay ilaashadaan iskuulkaasi runtii farxad bay tahay maanta inaan ka soo qayb galo munaasabadan lagu dhagax dhigayo labada fasal iyo xafiiska way yeelan doonto tuulada Gaatama waa fursad weyn oo runtii qaali ah waxaana ay mashaariicdan mashruucan uu qayb ka yahay 25 iskuul oo laga hirgeliyay miisaaniyadda dawladda waa markii ugu horeysay ee tiro inta leego iskuulaha miisaaniyaddeena laga dhiso cashuurteenu qiimaha ay leedahay iyo qaayaha ay leedahay taasna tusaysaa waxaynu arkaynaa haddaynu sidaa ugu sii wadno inaynu sanadada mustaqbalkaanu ka maarmi karnaba hay'ado iyo cidaynu gacmaha hoos dhigano aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada inaan maanta ka dhagax dhigno magaalada Gaatama iskuul laba fasal ah oo sida gudoomiyuhu sheegay ay ka mid yihiin 25 iskuul ee laga maalgelinayo miisaaniyaddii 2020 ee qaranka Khaliil Barraawran TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada Burco gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil iyo mas'uuliyiinta deegaanka Madheera ayaa maanta dhagax dhigay dugsi cusub oo laga hirgelin doono degmada Madheera iyo sidoo kale deegaanka Higlaale oo iyaguna hoos yimaada degmada Madheera dhagax dhigan oo ay ka sameeyeen degmada Madheera ayaa waxa halkaas ugu horeyn hadal ka soo jeediyay isuduwa ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil Xasan Maxamed Guureed iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil Maxamuud Xasan Caynaashe waxaana ka warameen ahmiyadda ay waxbarashadu u leedahay guud ahaan dalka waxaynu dhagax dhigaynaa fidintii ama korodhkii lagu kordhinayay dugsiga hoose dhexe ee Madheera arrintaas oo runtii arrin aad u qiimo badan siyaasadda wasaaradda waxbarashadana tiir ka mid ah ka jawaabaysa ama fulinaysa oo ah fidinta waxbarashada isla markaana ka jawaabaya baahi ka mid ah baahiyaha ugu mudan ee degmadan ama bulshadan degmada Madheera ama dugsiga Madheera waxaan halkan aad iyo aad uga mahad celinayaa cid kasta oo horumarka door ku lahayd gobolka Saaxil laba ka mid ah aynu saaka dhagax dhigaynaa waa arrin runtii taariikhi ah gudoomiyaha degmada Madheera Cumar Cali Xuseen Buraale oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay dhagax dhiga dugsiyadan kala duwan ee laga hirgelinayo deegaanada Madheera iyo sidoo kale deegaanka Higlaale ee dhinaca waqooyi ee degmada Madheera galaas lagu kordhinayo Madheera School maadaama uu barakac ku soo kordhay degmada tiradii ardayduna ay farabadatay ardayda halkan iskuulkan dhigata majority-goodu waa kuwa ugu mudan qarankan inuu huro sida ay wax u bari lahayn gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaasho oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay dugsiyadan ay dhagax dhigayaan waxaanu dhagax dhigaynaa laba goobood oo waxbarashada lagu kordhinayo meel waa Higlaale halkana waxa weeyaan degmada Madheera runtii waxaan u mahad celinayaa community-ga halkan degan oo guddida heer degmo
oo si fiican uga warhaysa iskuullada iyo xaaladahooda iyo sida ay isugu tiirsan yihiin xukuumad ahaan waxaa ka go'an in la xoojiyo waxbarashada iyadoo lagu shaqaynayo siyaasadda ay u dejisay wasaaradda waxbarashadu. mashruucan ayaa waxa uu qayb ka yahay mashruuca fidinta dhinaca waxbarashada waxaana gobolka saaxil maanta laga dhagax dhigay 2 iskuul oo iskuulka Madheera loo kordhinay 2 galaas halka dugsi cusubna laga dhagax dhigay deegaanka Higlaale ee dhinaca galbeed ee degmada Madheera. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, telefishinka qaranka Soomaaliland, degmada Madheera.